الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا qodobada wararka janalkeena daynila TV ugu door koron waxaana kamid noqonaya madaxweynaha koonfur galbeed oo kulan isugu yeeray hay'adaha samafalka gaari ay leeyihiin ciidamada dawladda oo qof shacab ah dilaya Sheekh Shariif oo loo doortay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranna dawladda oo gargaar degdeg ah u diraysa Hiiraan iyo Baaya si dadka dhibaatada fatahaada ku saameysay wax loo gaarsiiyo dacwad laga gudbiyay xildhibaankii su'aasha weydiiyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani al-shabaab oo sheegtay inay la wareegeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidanka dawladda dalka Kenya wafdi ka socda dawladda Soomaaliya oo shir uga qayb galaya dalka Qatar madaxa xukuumadda Galmudug oo guddi magacaabay dawladda Soomaaliya oo baaq u dirtay Soomaalida ku nool dalka Kenya gudoomiye hore ee degmada Maxaas oo xukun lagu riday madaxweynaha Hirshabelle oo ka hadlay fatahaada webiga Shabeelle uu ka sameynayo magaalada Beledweyne iyo Mareykanka aqalkiisa hoose oo ay yeeday xasuuqi Armenia daawadayaal intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka daynila TV ugu door korona intaan u gudgelin qodobadaas oo faahfaahsan marka hore waxaan idinka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan janalka subscribe saartaan sidoo kale gambareelka aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatan ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa kulan isugu yeeray hay'adaha samafalka shirkan uu daafuray madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlayay sidii hay'adaha samafalka gargaarka degdega ah ay u gaarsiin lahaayeen degmada Bardaale ee gobolka Baay oo haatan ka jirta fatahaada biyaha shirka oo ay ka qayb galeen guddiga gurmadka fatahaadaha koonfur galbeed iyo hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed ayaa inta uu socday waxa uu ahaa mid looga hadlayay sidii shacabka ku nool degmada Bardaale ay u heli lahaayeen gargaar dhameystiran wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdiqaadir Sheekh Cali Baraka ayaa ugu horeyn waxa uu ka warbixiyay xaaladda degmada Bardaale iyo saameynta fatahaadaha biyaha ay ku yeesheen shacabka ku nool degmada Bardaale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bogaadiyay hay'adaha samafalka inay gargaar degdeg ah ay gaarsiiyeen dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada Bardaale iyo guud ahaan gobolada koonfur galbeed waxaana uu uga mahadceliyay sida ay uga soo qayb galeen shirkaasi gaari ay leeyihiin ciidamada dawladda ayaa qof shacab ah dilay mid ka mid ah gaadiidka ay leeyihiin ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaafadda Tabeelaha Sheekh Ibraahim ee duleedka magaalada Muqdisho waxa uu ku jiray wiil dhalinyaro ah goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegayaan in laba ka mid ah gaadiidka dagaalka ee ciidamada dawladda oo wada socday uu mid ka mid ah jiray wiilka dhalinyarada ah kadib ugu geeriyooday mid ka mid ah isbitaalada Muqdisho dhaawicii ka soo gaaray wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in labadii gaari ee ahaa cabdibilayaasha oo ay leeyihiin ciidamada dawladda isla markaana wiilka dhalinyarada ah dilay ay socdaalkoodii iska sii wateen inta badan gaadiidka ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ayaa si arxan dara ah waxa ay gabaaridooda u jirsiyaan dadka shacabka iyaga oo gedibiska isaga socda ama meesha ka baxsada Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dawladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa loo doortay gudoomiyaha madasha xisbiyada qaranna magaalada Muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad kooban oo loogu dhawaaqay madasha xisbiyada qaran oo ay ku midoobeen xisbiyo dhowr ah oo Soomaaliya ka jira oo ay qayb ka yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud madashan ayaa waxaa ku midoobay ilaa 6 xisbi siyaasadeed oo kala ah himilo qaran midowga iyo horumarka ilays kulan NBB iyo xisbiga nabadda waxaana gudoomiye looga dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed sidoo kale gudoomiye ku-xigeenada madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa loo doortay Professor Maxamed Cabdi Gandi oo ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya
madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa madaxda dowladda federaalka ku eedeeyay in ay ka gaabiyeen fatahaadaha gaar ahaan magaalada Beledweyne. Waxa uu sheegay in dowladda ay awooday lacago fara badan oo taalooyin lagu dhisay laakiin aysan awoodin in wax loo qabto dadka reer Beledweyne aysan ahayn wax isqabanayo. dhinaca kale madaxweynihii hore ee dowladdii ku-meel gaarka ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa uga mahadceliyay xisbiyada sida kalsoonida leh oo ay ugu doorteen gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran isla markaana si wanaagsan ugu shaqeyn doono. sababta loo aas-aasay madashan ayuu ku sheegay in la abuurayo jawi siyaasadeed oo lagu tartami doono oo ku dhisan nidaam iyo is-ixtiraam si looga gudbo nidaamka 4.5 loona gaaro marxalad baahsan oo aas-aaskeedu yahay dadku inay isku raacaan aragti siyaasadeed. ugu dambeyntii waxa uu sheegay Sheekh Shariif Sheekh Axmed in doorashada ay ka dhiman tahay sanad iyo wax ka yar haddana aysan muuqan ilaa iyo hadda nidaamka ay doorashada ku geli karaan, sidoo kalena aysan jirin xuriyad ay ku dhaqaaqi karaan xisbiyada iyo dadka Soomaaliyeed, isla markaana qofkii doonayo in uu qabto lagu waajibiyay in uu dowladda fasax ka qaato, taasina ay dastuurka ka soo horjeedo sida uu hadalka u dhigay. dowladda ayaa gargaar degdeg ah u diraysa Hiiraan iyo gobolka Baay. dowladda Soomaaliya ayaa 2 diyaaradood oo gargaar ah u diraysa magaalooyinka Beledweyne iyo Baydhabo. goordhow ayaa lagu wadaa 2daasi diyaaradood in ay ka duulaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho iyaga oo ku sii kala jeeda Beledweyne iyo Baydhabo. diyaaradaha gargaarka saaran ayaa loogu talagalay in dadka dhibaataysan si dhaqso ah loo gaarsiiyo maadaama dadka xaaladooda aad u liidato. magaalada Beledweyne ayaa waxaa ku fatahay webiga Shabeelle kaas oo inta badan saameeyay xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi. dadka ayaa intooda badan isaga barakacay Beledweyne waxayna maciin bideen duleedka magaalada iyo meelaha dalcadaha si ay ugu badbaadaan fatahaada. halka degmada Bardaale ee gobolka Baay dadkii ku noolaa ay iyaguna duleedka degmadaasi u barakaceen kadib markii magaalada ay ku soo rogmadeen daadad ka dhashay roobab dhowaan ka da'ay halkaasi. dacwad laga gudbiyay xildhibaankii su'aasha weydiiyay madaxweyne Dani markii uu baarlamaanka furayay. xafiiska xeer ilaalinta guud ee maamulka Puntland ayaa waxaa baarlamaanka Puntland uu u diray warqad dacwo ah oo uu kaga codsanayo in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawil Xasan Daad kaas oo dhowaan su'aal adag weydiiyay madaxweynaha Puntland. xeer ilaalinta Puntland ayaa xubnaha golaha wakiilada maamulkaas waxa ay ka dalbatay in ay u ogolaadaan in xildhibaanka lagu soo oogo dacwadda. xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa 26 bishan oo ah maalintii uu furmay kalfadhiga 45aad ee golaha wakiilada Puntland waxa uu madaxweyne Dani weydiiyay su'aal ahayd in amni darro weyn ay ka jirto magaalooyin ka mid ah maamulka Puntland lagana qunuudo masaajidyada. warqadda loo diray guddoonka baarlamaanka Puntland oo uu ku saxiixan yahay xeer ilaaliye ku-xigeenka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in xildhibaanka uu ku xadgudbay shuruucda dalka u yaallo, isla markaana uu ka dhawaajiyay hadallo ay tahay in dacwad xoog leh loogu oogo. rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ay ciidamada Kenya ku lahaayeen deegaanka Dhajambuul oo hoos taga degmada Dhobley kuna dhow xaduudka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka gobolka Jubbada Hoose. wararka laga helayo halkaasi ayaa waxa ay sheegayaan in weerarka kadib dagaal muddo kooban socday ay Al-Shabaab waxa ay sheegteen in deegaanka Dhajambuula kala wareegeen ciidamada dowladda Kenya oo deegaankaasi ku sugnaa kana ilaaliya ammaanka xuduudka ay la leeyihiin Soomaaliya. warar ay Al-Shabaab ku daawaceen baraha ay ku leeyihiin internetka ayaa waxa ay ku sheegeen in ay dagaal kula wareegeen saldhigyada ciidamada Kenya ee deegaankaasi Dhajambuula isla markaana muddo saacadaha ay gacanta ku hayeen. si kastaba weli lama oga khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac
ee ka dhashay dagaalka dhex maray ciidamada Kenya iyo ururka Al-Shabaab kaas oo ka dhacay deegaanka Dajambula oo hoostaga degmada Dhobley ee gobolka Jubbada Hoose. wafdi ka socda dowladda Soomaaliya ayaa shirar uga qayb galaya dalka Qatar. wafdi uu hogaaminayo wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Injineer Cabdi Canshuur Xasan ayaa ka qayb galaya shirar iyo bandhigga tiknoolajiyadda ee Qatar iyo shirka kooxda heerka sare ee madasha ammaanka ee Munich Secretary Conference. shirka iyo bangiga isgaarsiinta Qatar oo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay dalal kala duwan ayaa waxaa daahfuray amiirka dowladda Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. shirkan ayaa muddada uu socdo waxaa looga hadlayaa qodobo ay ka mid yihiin ammaanka internetka, horumarinta iyo isticmaalka tiknoolajiyadda, hal abuurka dhalinyarada iyo doodo kala duwan oo la xiriira isticmaalka adeegyada xukuumad daneebka iyo ganacsiga elektarooniga ah ee e-commerce. kulanka wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa sheegay in ka qaybgalka shirarka iyo bandhigyada noocan oo kale ah ay muhiim u yihiin Soomaaliya, isla markaana ay ka caawinayso horumarinta tiknoolajiyadda, ayna la wadaagi doonaan ama wadaagista khibradaha iyo qorshayaasha ay isweydaarsan doonaan dhinacyada ka qaybgalaya shirka, gaar ahaan dalka Qatar oo ka mid ah kuwa ugu horeeya dalalka Carabta dhinaca baahinta tiknoolajiyadda. waxaa naga go'an in aan sahmino helitaanka dalal, ururo, shirkado iyo khubaro naga caawiya fulinta siyaasadda iyo istiraatiijiyadda qaran ee tiknoolajiyadda ee ay dhowaan wasaaraddu diyaarisay, ayuu yiri wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya. madaxa xukuumadda Galmudug ayaa guddi magacaabay. madaxa xukuumadda maamulka Galmudug Maxamed Shaakir Cali Xasan ayaa magacaabay guddiga u gurmashada dadka ay saameeyeen fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne. guddiga oo ka kooban 9 xubnood ayaa waxaa gudoomiye looga dhigay Yuusuf Xasan Ciyow, waxaana laga soo kala xulay maamulka Galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. xubnaha guddiga ayaa waxa ay qaban doonaan in ay ka qayb qaataan gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle. madaxa xukuumadda ayaa shacabka Galmudug ugu baaqay in laga qayb qaato gurmashada dadka ku dhibaataysan gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. dowladda Soomaaliya ayaa baaq u dirtay Soomaalida ku nool dalka Kenya. safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Danjire Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ugu baaqay Soomaalida ku nool dalkaasi in ay ka qayb qaataan gurmadka loo sameynayo ka barakacay fatahaadaha webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne. Ambassador Tarsan waxa uu sheegay in ay tahay waajib in dadka Soomaaliyeed iyo dowladooda in ay u midoobaan sidii dadkaas oo qaarkood ay banaanka jiifaan sidii loogu gurman lahaa. dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kenya waxaan leeyahay u gurmada walaalihiin reer Beledweyne ee webiga ku fatahay, banaanka ayay jiifaan, ka sukow ajnabi walaalahooda Soomaaliyeed ayay sugayaan. dowlad iyo shacabba in aan u midowno ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri Danjire Tarsan. dadkii deganaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa badi ay ka barakaceen magaaladaasi kadib markii uu ku fatahay webiga Shabeelle, waxaana ay xaalad bini'aadamnimo ku haysataa deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas ayaa xukun lagu riday. maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka militariga Soomaaliya ayaa waxa ay xukunno kala duwan ku riday eedeysanayaal loo haystay qarax ka dhacay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Cali Axmed Guure Qoyane oo maqane ah laguna eedeeyay inuu ka tirsan yahay Al-Shabaab iyo Nuur Ibraahim Mahad Alle ayaa lagu wada xukumay dil toogasho ah, halka Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale gudoomiyihii hore ee degmada Maxaas lagu xukumay xabsi daa'in. dhammaantood waxaa loo haystaa qarax uu ku dhintay gudoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi, kaas oo dhacay 19 bisha 4 2019.
madaxweynaha Hirshabelle ayaa ka hadlay fatahaadaha webiga Shabeelle uu sameynayo. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa marka hore waxa uu ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay fatahaada webiga, si gaar ah doontii la qalibmatay dad ay mas'uuliyiin ku jireen. waxa uu sheegay in fatahaada webiga Shabeelle ay dhammaan saameysay xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne, isla markaana fatahaada hadda jirta ay tahay mid weyn oo dhici jirtay 50 sano ee marra. isaga oo sii hadlayay madaxweyne Waare ayaa waxa uu hadalkiisa intaas ku daray inay u yaalaan shaqooyin gaaraya ilaa 3 oo kala ah baadigoobka dadka webiga ku maqan, dad go'doon ku jira oo badbaadin u baahan, iyo gurmad bini'aadamnimo dadka banaanka ku dayacan. hay-adaha ayuu ugu baaqay iyo cid alaal cid wax u awooda in ay dadkaasi u soo gurmadaan. ugu dambeyntii daawadayaal, Mareykanka aqalkiisa hoose ayaa ayiday xasuuqii Armenia. aqalka wakiilada Mareykanka ayaa cod aqlabiyad leh si rasmi ah xasuuq ugu aqoonsaday dilwadareedkii ay imbratoriyadii ku qaaday ama imbratoriyadii ku nooleed Anatolia oo hadda dhulka loo yaqaan Turkiga. ilaa iyo 405 mudane ayaa ugu codeeyay halka 11 kaliya ay ka aamustay ama diiday, waxaana talaabadan loo arkaa mid uu goluhu jawaab ugu dirayo Turkiga oo ku dhawaad hal qarni diidanaa in wixii ku dhacay dadkii reer Armenia aysan ahayn xasuuq. inkasta oo ay madaxweynayaal hore oo Mareykanka ah ay dikreetooyin ku aqoonsadeen inuu xasuuq ku dhacay dadka reer Armenia, haddana waxa ay noqotay markii ugu horeysay oo uu Kongareeska Mareykanka si aqlabiyad leh ugu aqoonsado. lama oga in uu golaha sanadka ku waafaqi doono iyo in kale. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut ayaa markiiba cambaarayay talaabadan, ku tilmaamay go'aan ceeb ah oo aanan sinaba ugu cuntameynin shacabka iyo dowladda Turkiga. wuxuu intaasi ku daray in qaraarka Kongareeska uu yahay mid ay dowladda Turkiga uga argudanayaan duulaanka ay Ankara ku qaaday waqooyiga Syria. taariikhyahanada ayaa sheegay in ku dhawaad 1,500,000 oo Armenian ah ay ku dhinteen gacanta khilaafadii hore ee Islaamka ee Cusmaaniyiinta intii u dhaxaysay 1915 ilaa 1923. Turkiga ayaa ku andacoonaya in dadkaasi ay ka mid ahaayeen malaayiintii ku dhimatay dagaalkii koowaad ee dunida, sidoo kalena ay intooda badan ku dhinteen gacanta ciidamadii Ruushka ee qaybta ka ahaa dagaalka koowaad ee adduunka. guud ahaan warkeenii channelka Daynila TV halkan ayaan kusoo gabagabeynayaa. nabadgelyo daawadayaal, intaan warkan warka xiga ku kulmi doono.